الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnaa buugga maadada sayniska fasalka saddexaad ee dugsiga hoose. Waxaan soo dhammaynay cutubka koowaad. Waxaan kusoo baranay waxbarashada caafimaadka. Insha Allah waxaan bilaabaynaa cutubka labaad. Waxaan ku baranaynaa noole. Noole marka aan dhahayn inay nagu soo dhacaan marka xayawaanada iyo dhirta inay nagu soo dhacaan loo baahan yahay markii noole lagu dhoob inay kugu soo dhacaan xayawaanada iyo dhirta inay kugu soo dhacaan. Marka fasalka labaad waxa aan kusoo daraasaynay ama aan kusoo baranay magacyada guud ee waxyaabaha aan nooleyn. Waxyaabaha aan nooleyn inay kugu soo dhacaan carrada, biyaha, hawada, waxyaabahaas ka mid ah. Iyo nooleyaasha iyo xayawaanada marka ay dhintaan ayagana ay noqdaan waxyaabaha aan nooleyn. Astaamaha waxyaabaha aan nooleyn. Waxyaabaha aan nooleyn waxaan kusoo baranay fasalka labaad inay korin, inay neefsanin, inay dhaqdhaqaaqin. Marka dhaqdhaqaaq ma sameeyaan, mana koraan, mana tarmaan. Waxtarka iyo waxyeelada nooleyaasha ama noolaha. Waxtarkooda waxay ahaayeen nooleyaasha sida carrada hadda waxay ahayd in geedkii uu ku koro oo biyaha waan caawinay wax ku qabaysanayni hawlaheena kale ku qabsanayni sida waxyaabaha aan nooleyn waxaa kaloo ka mid ah mindida, baabuurta oo hawada neefta aan qaadanayn neefta soo saarnaa waa dabeelaha ka mid yihiin marka waan hawada ka mid tahay. Marka waxtarka waxyeelada waxaa ka mid ah gaadiidka waxa noolo waa shil ayuu galayaa biyaha waa daad ay sameeyaan waxyeelada ay ka mid tahay marka waxtarka waxyeelada. Fasalka saddexaad waxa aan ku daraasaynaa ama aan ku baran doonaa astaamaha noolaha oo laga wado marka dhirta iyo xayawaanada. Astaamaha dhirta iyo isbarbardhigga astaamaha dhirta. Buugga marka wuxuu u badan yahay waxqabad ayuu u badan yahay waxqabadkan waan akhrineynaa casharadan waan sharxeynaa insha Allah. Casharka koowaad astaamaha noolaha. Noolaha way neefsadaan, noolaha way koraan, noolaha way tarmaan, noolaha waxa waa meel intay ka dhaqaaqaan meel kale ay tagaan, noolaha way dheefsadaan. Marka waxyaabahaas oo dhan marka astaamaha ay ka mid yihiin. Marka koowaad neefsasho. Noolaha way neefsadaan. Macnaha oxygen ay qaataan, carbon dioxide ay soo saaraan. Noolaha oo dhani way neefsadaan si ay u noolaadaan. Xayawaanada badankooda waxa ay ku neefsadaan sanka sida animalska badanaa waxay ku neefsadaan sanka sida xayawaanada naasleyda ah. Kuwa naasleyda ah ama kuwa oo naasleyda ah waxay ka neefsadaan marka sanka ayay ka neefsadaan badanaa iyo qaar ka mid ah xayawaanada kale. Xayawaanada qaar waxa ay leeyihiin waafiyo ay ka neefsadaan sida kuwa marka waxaa ka mid ah marka kuwaasi malaayga ayaa ka mid ah. Waxaa jira xayawaano ka neefsada duleelada oogada jirka ka neefsada ayaa jiraan oo sida kuwa cayayaanada ayaa ka mid ah kuwaasi. Xayawaano waxaa jiraan maqaar ka neefsada ayaa jiraan kuwaasna waxaa ka mid ah marka waxa loo yaqaano raxa ayaa ka mid ah markaha Soomaalida qaar sida ay u yaqaanaan. Ridu waxa ay ka neefsataa sanka. Kalluunka waxa uu ka neefsadaa waafiyada. Waafiyo. Quraanjada, baranbarada iyo cayaha waxay ka neefsadaan mar dulduleelada
ayay ka neefsadaan oo yaryar oo jirkooda ku yaalo ayay ka neefsadaan. Waa ka marka quraanshada, ayaxa, baranbarada iyo cayayaanada kale waxa ay ka neefsadaan dulduleelada ama dulduleel yaryar oo ku yaala oogada jirkooda. Waxqabadka koowaad waxa aan gacanta ku qabanaynaa sanka muddo dhowr ilbiriqsi ah kadibna waxa aan arkayaa ardayda u sharxaya waxa aan dareemayo. Qof walba waad samayn karaa marka sanka haddii aad gacanta ku qabato waxaad dareemaysaa marka waxaa waye daal fara badan aad dareemaysaa marka xoogaa neefta ayaa kugu ceshoomaysa kadibna waxaa waaye xoogaa ciriiri ayaa dareemaysaa marka wax badan waxaa marka neefta liskuma celin karo marka meesha waxaan ka arkaynaa marka in neef la-aanteeda aan la noolaan karin. Waxqabadka oo labaad gacantayda ayaa dhigaya sanka hortiisa kadibna waxa aan sheegayaa in neef ka soo baxayso sankayga. Qof walba gacantiisa hortiisa waxaa waaye sankiisa hortiisa gacanta dhigo ha neefsado waxaa dareemaya marka qofka inuu neef soo saarayo. Waxqabadka saddexaad geed yar ayaa ku xiraya sanduuq. 2 maalmood kadib waxa aan eegayaa geedka inuu dhintay iyo in kale. Geedka waa dhimanaya. Geedka iftiin la'aan ma noolaan karo. Hawo la'aan ma noolaan karo. Hawona ma helayo, iftiinna ma helayo geedkii marka waa aburme. Waxqabadka afraad waxa aan ku buuxinayaa meelaha bannaan ee shaxda hoose ereyada ku habboon. Noole waxa uu ku neefsado ayaan ku horqaray marka kalluunki waafi ayuu ku neefsadaa waafiyo. Geela sanka ayuu ka neefsadaa. Raxa waxa waa maqaarka ayuu ka neefsadaa ayaxa dulduleelka oogada sare quraanjada dulduleelka oogada sare geedka dulduleelka oogada sare oo ka neefsada naftarkiisa ama waxa waaye dulduleelada yaryar ee caleenta dushooda oo loo yaqaano stomata loo yaqaano qaybta ka neefsada geedka. Nambarka labaad nooluhu waxa uu u baahan yihiin cunto iyo biyo yana way dheefsadaan ama waxa waaye cunto ayay u baahan yihiin noolaha. Dhirta iyo xayawaanada waa noolayaal. Noolaha oo idil waxa ay u baahan yihiin cunto iyo biyo si ay u noolaadaan. Noolaha haddii ay waayaan biyo iyo cunto muddo kadib waa ay dhintaan. Cunto la'aan ma noolaan karo. Cuntada maxay ka helaan marka tamar ayay ka helaan way ku koraan. Cuntada iyo biyaha waxa ay nooluhu ka caawiyaan inuu koro. Sidoo kale cuntada iyo biyuhu waxa ay na siiyaan tamar aan ku shaqeyno iyo kuna ciyaarno iyo wixii la mid ah marka aan dhahayno cuntada noolaha waxay ka difaacaan haddii noolaha nafaqo u helo noolaha jirkiisa haddii cudur ay soo weeraraan qofka waxa waaye jirkiisa waxay awood u siinaysaa marka in waxa waaye cudurkaasi la dagaalamo. Xayawaanku cuntadiisa waxa uu ka helaa dhirta iyo xayawaanada kale. Dhirtu cuntada iyada ayaa samaysata waxa ayna cuntada ka samaysataa hawada biyaha iyo iyada oo kaashanaysa iftiinka qorraxda. Sidoo kale xayawaanadana waxay siiyaan carbon dioxide ay siiyaan dhirta si markay cunto ay ugu samaysato. Dhirta iyo xayawaanka waxa uu u baahan yahay cunto ayuu u baahan yihiin. Halkan marka waxqabad ayaa noogu yaalo. Waxqabadka shanaad waxa aan ka doodaynaa waxtarka cuntada u leedahay noolaha. Noolaha cuntada way ku koraan. Koriimo ayay siiyaan. Cuntada waxa waaye tamar ayay ka helaan. Way ku shaqeeyaan tamar ayay ka helaan. Cuntada
cudurro ayay ka difaacaan, cudurrada ayay ka difaacaan cuntada. Okay. Waxqabadka lixaad, waxa aan buuxinayaa meelaha bannaan aniga oo adeegsanaya ereyada hoos ku qoran: cunto iyo biyo, oo iftiin, xayawaanada, biyo iyo cunto. Tusaale, xayawaanka iyo dhirta waxa ay u baahan yihiin qaybta koowaad aan ku buuxinayna marka cunto iyo biyo. Xayawaanada waxa ay cunaan dhirta iyo xayawaanada kale. Qaybtan xayawaanada kale. Okay. Dhirta waxa ay samaystaan cuntada waxa ay ka samaystaan cuntadeeda hawada iyo biyaha, iyadoo ay kaashanayso iftiinka. Cuntada iyo biyaha marka biyaha waxa ay nooluhu ka caawiyaan in uu koro. Okay. Haddana waxa inta dash Allah iyo biyuhu Allah cuntada marka qaybtan cuntada iyo biyuhu waxa ayna siiyaan tamar aan ku shaqeyno kuna ciyaarno. Okay. Qodobka saddexaad, dhaqdhaqaaqa xayawaanada. Xayawaanada way dhaqdhaqaaqaan. Xayawaanada inay meel ka tagaan meel kale ay aadaan, waa place to place. Dhammaan nooleyaashu waa ay dhaqdhaqaaqaan. Qaar waa xamaartaan, qaar way duulaan. Xamaar marka ay dhaheen waxa waaye oo xawadkooda ay ku socdaan. Qaar way duulaan sida shimbiraha camal. Qaar way socdaan sida xayawaanada caadiga sida bini'aadamka, lo'da, geela, ariga. Qaarna way dabaashaan sida waxa waaye malayga, kalluunka, yaxaaska, kuwaasi way dabaashaan. Okay. Xayawaanada iskooda ay u dhaqaaqaan. Aniga iyo adiga waxa aan u dhaqaaqnaa qaab kala duwan ayaan u dhaqaaqnaa. Tusaale ahaan, waa socon karnaa, ordi karnaa, boodi karnaa, fadhiisan karnaa, istaagi karnaa. Intaas baa samayn karnaa marka. Dhirta. Okay. Xayawaanada iskooda ay u dhaqaaqi karaan soomaan. Dhirta marka iskood uma dhaqdhaqaaqdo. Hase yeeshee waxaa jira dhaqdhaqaaq ku dhex socda qaybaha geedka dhexdiisa. Tusaale, xididka geedka waxa uu u leexdaa dhinaca ay biyaha ama biyuhu ka xigaan. Dhinaca biyuhu ka xigaan ayuu u leexdaa xididka. Jirida iyo caleemuhu waxa ay u leexdaan dhinaca uu ilaysku ka xigo ayay u leexdaan. Marka waxa waaye dhaqdhaqaaq xadidan waa marka oo aan la dareemeynin. Laakiin markii ayaan la joogo waad arkaysaa markay dhaqaaqayaan, laakiin aad ma dareemeysid. Waxqabadka toddobaad, waxa aan isbarbar dhigaynaa dhaqdhaqaaqa shimbiraha iyo bisada. Shimbiraha way duulaan, bisadan waxa waaye caadi u socotaa, way orodaa, way fadhiisataa. Okay. Waa jiifataa. Laakiin shimbiraha iyaga waxay ugu duwan yihiin marka shimbiraha way duulaan. Kadibna waxa aan ardayda la wadaagayaa kala duwanaanshaha u dhaxeeya dhaqdhaqaaqa shimbirta iyo bisada. Shimbirta waxay ugu duwan tahay marka iyada way duushaa. Dowladda ay ugu duwan tahay. Waxqabadka sideedaad, waxa aan soo qaadanayaa sawirkeyga markii aan yaraa, kadibna waxa aan ka jawaabayaa su'aalaha hoos ku qoran. Markii aan yaraa iyo hadda, maxaa iska kay bedelay? Maxaa u sababa isbedelka igu dhacay? Markii aan yaraa waa yaraa marka waxa waaye qof weyn maahay, laakiin markii aan weynaaday jirkeygu wuu koray. Sababtan maxay tahay? Jirka ayaa koray. Qof weyn ayaa noqday marka oo taran soo saari kara ayaa noqday marka. Okay. Casharka labaad, weli waxaan ku guda jirnaa cutubka labaad ayaan ku guda jirnaa. Astaamaha dhirta. Astaamaha xayawaanada ahayn soomaan kuwan maxaa dhirta.
dhirta la mid leh xayawaanada kale lay la mid tahay. Dhirta waxaa xayawaanada lay la mid tahay, noolaha kale la mid tahay. Waxay ay sameeyaan ayayna astaamahooda la mid tahay. Koritaan. Eeg sawirka hoose. Iniintu waa ay biqishaa kadibna waxa ay noqotaa geed weyn iyada oo maraysa heerar kala duwan. Halka geedka marka koowaad waa markaas hadda soo biqlay kadib waxaa geed xoogaa yar weyn ayuu noqday oo miro leh. Caqabadka sagaalaad waxa aan soo qaadanayaa iniin digir ah. Waxa aan ku beerayaa weel caag ah oo ay ku jiraan caro madow. Waxa aan ku shubayaa si ay iniinta u biqisho. Waxa aan ku shubayaa biyo si ay iniinta u biqisho. Biqil markaanayn waxaa si iniinta ay u soo baxdo. Okay. Waxa aan soo qaadanayaa mastarad si aan u cabiro dhirirka geedka marka uu soo baxo. Toddobaadkiiba mar ayaan qorayaa dhirirka geedka kadibna waxaan ku diiwaan gelinayaa buuggayga. Yacni geedka maalmo ka dambeyso waxa isbedelaya wuu dheeraanayaa geedka. Nambarka 2 cunto sameyn. Dhirta cunto ayay samaysataa laakiin xayawaanada cunto ma samaystaan. Iyagu waxa waaye heterotrophic waaye. Laakiin dhirta autotrophic waaye, cuntadooda ayay samaystaan. Dhirtu waxa waaye iyada ayay isku tiirsan tahay, badanaa cuntadeeda iyada ayay samaysataa. Xayawaanada laakiin dhirta iyo xayawaanada kale ayay ku tiirsan yihiin. Dhirta laakiin xayawaanada ayaa si aan toos ahayn ugu tiirsan tahay. Dhirta haddii carbon dioxide aan helin, dhirta cunto ma samaysan karto. Sidaa la'aageed carbon dioxide dhirta waxay ka heshaa xayawaanada ayay ka heshaa. Okay, dhirtu xagee ka heshaa cuntadeeda? Dhirta cuntadeeda iyada ayaa samaysata. Cuntada waxa ay ka samaysataa biyaha, hawada, iyo iftiinka qorraxda. Iyo nooleyaasha kale waxay ka helaysaa marka carbon dioxide. Okay, waxqabadka 10aad. Dhirtu iftiinka qorraxda la'aantii ma noolaan karto. Waxa aan soo qaadanaynaa tijaabo yacni 2 geed oo yaryar ah oo 2 dheri ku kala beeran 7 maalmood jira. Mid waxa aan ku qorayaa B kan kalena T. Eeg jaantuska marka B iyo 7 maalmood markii ay jiraan ayaa mid B iyo T ku kala qoraynaa. Okay, waxa aan dhigayaa geedka B meel hawo iyo qorrax leh. Maalin kasta waan waraabinaynaa labada geedba. Waxa aan dhex dhigayaa geedka T-da armaajo ama kabar, halkaas oo ka heli karo hawo balse iftiin qorraxda uusan ka heli karin. Okay, maalin kastana waan waraabinayaa labada geed. Okay, 7 maalmood kadib waxa aan isbarbar dhigayaa labada geed. Okay, waxa aan qorayaa wixii aan arkay kadibna waxaan ka jawaabayaa su'aalaha hoos ku qoran. Maxaa ku dhacay caleemaha geedka T? Caleemaha geedka T waa isbedelaya marka waxaana sabab u ah qorrax la'aan. Okay, nambarka 3aad. Dhirtu waxa ay u baahan tahay hawo. Dhirtu sidoo kale hawo la'aan ma noolaan karto. Okay, dhirtu waa noole waxa ayna u baahan tahay hawo si ay u noolaato. Carbon dioxide ay qaadataa iyada. Oxygen way soo saartaa. Xayawaanada cagsi ay isku yihiin. Xayawaanada ay oxygen ay qaataan, carbon dioxide ay soo saaraan. Dhirta maxaa marka oxygen ay soo saaraan, carbon dioxide ay qaataan. Marka cagsi ay isku yihiin.
Okay, haddaba sidee baan u caddayn karnaa in dhirtu u baahan tahay hawo? Sidee u caddayn karnaa marka? Waxaa u caddayn karnaa geedkii hadaaye la aan soo qaadano. Waxa aan soo qaadanayna labada geed oo yar yar oo laba dheri ku kala beeran 7 maalmoodna jira. Mid waxa aan ku qorayaa B iyo T ku kala qor. Okay, marka mid waxaa ku xirtaa marka tan kan T ah baca ku xir marka. Waxaan dhigayaa labada geed dibadda guriga iyo ama dugsiga, meel bannaan oo hawada iyo iftiinka leh. Waxaan ku xirayaa kuna gejinayaa geedka T bac balaastig ah. Waxa aan waraabinayaa labada geedba si isku mid ah ayaan u waraabinayaa maalin walba. Waxa aan fiirinayaa marka waxa ku dhaca labada geed 7 maalmood kadib, aniga oo qorayo wixii aan ku arkay. Geedka T marka carbon dioxide ma helayo badanaa. Okay, geedka B waxa hawadii ayuu u baahan yahay marka wuxuu helayaa marka hawadii uu u baahnaa ayuu helayaa sida nitrogen iyo kuwaas waa helayaa marka. Waxqabad ayaa u badan yahay dhana buug waxqabadka 12aad. Waxa aan ka jawaabayaa weydiimaha hoose aniga oo guurgalaya waxqabadka 3aad ee aan sare ku soo maray. Maxaa ku aragtay labada geed 7 maalmood kadib? Maxaa ku aragtay? Waa isbedelayaan midabka labada geed ma isbedelay? Haa, waa isbedeleen. Midabka labada geed ma isbedelin? Haa, kan oo biida ah midabkiisa cagaar ayuu ahaanayaa, kan kale midabkiisu isbedelaya marka waxaan dhirayaa camal noqonaa marka wilting ayuu ku dhacayaa kan oo tiida ah. Okay, labada geed midkee ayaa weynaanaya ama koraya? Kan biida ayuu koraya. Kan biida waxa wax walba oo u baahnaay wuu helay. Okay, isbedelada ku dhacay labada geed B iyo T maxaa u malaynaysaa in ay sabab yihiin? Hawo la'aanta. Geedka T-da hawadii waa laga xiray marka baca ayaa lagu xiray. Kan B waxa hawadii ayaa loo baneeyay marka isbedelka marka taas ayaa ugu wacan. Okay, waxqabadka 3aad isbarbar dhigida astaamaha dhirta iyo xayawaanada. Dhirta iyo xayawaanku waxa ay ku kala duwan yihiin waxyaabo badan. Shaxda hoose waxa aynu ku baranaynaa kala duwanaanshaha u dhexeeya dhirta iyo xayawaanada. Waa difference between animals and plants. Xayawaanka iyo dhirta. Xayawaanku cunto ma samaysto waxa uu cunaa dhirta iyo xayawaanada kale. Dhirta cuntadeeda ayada ayaa samaysata. Xayawaanku kala duwanaanshaha labaad. Xayawaanku waxa uu ka dhaqaaqi karaa meel una dhaqaaqi karaa meel kale. Dhirta meesheedii kama dhaqaaqdo oo hal meel keliya ayaa ay ku kortaa. Okay, xayawaanku waxa uu ka neefsadaa qaybo kala duwan oo jirkiisa ka mid ah sida sanka, maqaarka iyo waafiyaha. Okay, dhirta waxa ay ka neefsataa duleelada yaryar oo ku yaala caleemaha dushooda. Okay, kan kale afaraad xayawaanadu way dhalaan waxa ayna dhalaan ilmo iyaga oo u eg ama ukun ayay dhalaan. Dhirtu waxa ay dhalaan iniin ayay dhalaan. Iniinahaas ayaa waxa ay noqdaan dhir iyaga u eg noqdaan. Okay, qodobka u dambeeyay xayawaanadu waxa ay leeyihiin xubno dareen ay leeyihiin sida indhaha, dhegaha iyo sanka. Dhirtu ma lahan. Marka astaamaha kuwa marka astaamaha ay ku
kala duwan yihiin dhirta iyo xayawaanada. Marka meeshan laba waxqabad ayay ku yaalaan. Waxqabadka 13aad waxaan sheegayaa 3 qodob oo ay ku kala duwan yihiin dhirta iyo xayawaanada. Marka waxaan dhahnay waxay ku kala duwan dhirta cuntadeeda ayay samaysataa, xayawaanada ma samaystaan. Number 1 dhirta iskood uma dhaqdhaqaaqaan, xayawaanada laakiin waa iskood ayay u dhaqdhaqaaqaan. Dhirta xubno oo dareen ah ma lahan, laakiin xayawaanada xubno oo dareen ah ayay leeyihiin. Waxqabadka 13aad waxaan waxqabadka 14aad waxaan u baxayaa dibadda dugsiga. Waxaan soo qorayaa magacyada dhirta iyo xayawaanada aan soo arkay, kadibna waxaan qorayaa astaamaha ay ku kala duwan yihiin. Marka 3 dhir soo qaado, sida geed cambe, geed talaal, geed babaay soo qaado. Xayawaanadana soo qaado, geel, ari iyo lo soo qaado. Marka waxay ku kala duwan yihiin sheeg insha Allah. Marka waxay ku kala duwanaan karaan waa intaan 3 ka mid ah ka soo qaado. Marka waa isbarbar dhigitaankan waxaa ka soo qaadataa 3 ka soo qaado. Xayawaanada cuntadooda ma samaystaan. Dhirta cuntadeeda ayay samaysataa. 2 xayawaanada xubno dareen ah ayay leeyihiin, dhirta xubno dareen ah ma lahan. Tijaabo waa ku samayn kartaa. Lo'da waxaa samayn kartaa in ul aad ku dhufatid, kadib way dhaqaaqayaan. Geedka marka ul ku dhufo dhaqaaqaya. Waxaa kaloo dareen geedka taawo in marka falcelin sameynaya in kala samey. Xayawaankan taawo dareen falcelin ayuu sameynaya marka. Waxaa kaloo sheegi karnaa xayawaanada way dhalaan, ukun ayay dhalaan, ilmo yar ayay dhalaan, dhirta ma dhalaan. Marka 3 ka mid ah ka soo qaado. Cutubkiina halkan ayaan ku ekeynayaa. Cutubkiina waa noo dhammaaday alxamdulillah. Marka insha Allah wixii markaas oo falcelin ah idinka laydinka rabaa, wixii markaas oo dhiirigelin ah idinka laydinka rabaa insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.